shan waxyaabood oo ay raggu ku soo jiitaan dumarka. Dumarku waxay u arkaan soo jiidashada si ka duwan sida ay raggu u arkaan. Si la mid ah sida raggu u qiimeeyaan muuqaalka guud ee qofka ayay dumarkuna sidoo kale u qiimeeyaan. Balse farqa u dhaxeeya wuxuu yahay in dumarku aanay qiime aad u sii weyn siin sida rag oo kale, balse ay tixgeliyaan qodobo kale. Ninku wuxuu u tixgeliyaa gabadh inay qurux badan tahay markuu arko gabadh jamaal iyo jidhba Ilaahay u dhameeyay, ama gaadhi ha wadato ama ha lugayse. Dhinaca kale, dumarku aragtida ay ka haystaan soo jiidashadu waxay ku xidhan tahay waxyaabo kale. Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa 5 waxyaabood oo kala duwan oo ay raggu ku soo jiitaan dumarka. 5 waxyaabood oo ay raggu ku soo jiitaan dumarka. Number 1, gaadhiga ninka. Cilmi baadhis la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in gabdho badani ay u arkeen nin kaliya mid muuqaalkiisu aad u soo jiidasho leeyahay kadib markay arkeen isagoo gaadhi qaali ah oo qurux badan wata. Dhinaca kale, gabdho badan ayaa waxaa la tusay sawirro laga soo qaaday rag ka siman quruxda iyo soo jiidashada, balse faraqa kaliya ee u dhaxeeyay uu ahaa nooca gawaarida ay wateen. Nimankii watay gawaarida qaaliga ah iyo kuwii quruxda badnaa ayaa waxay dumarku u arkeen qaar aad u soo jiidasho leh. 2, dharka ninku gashado. Waxaa laga yaabaa ninku inaanu danayn nooca dharka ay gabadhu gashato, haddii ay xidhan tahay shiid iyo hadday xidhan tahay bacweynaba. balse dumarka ayaa waxaa la ogaaday inay bedelaan aragtida soo jiidasho ee ay ninka ka haystaan iyagoo ku qiimeynaya nooca dharka uu xidho. Dumarku sidoodaba waxay si biologically ah ugu samaysan yihiin inay xiiseeyaan ragga darajada noloshooda iyo heerkoodu sarreeyo. Dharkuna badanaa wuxuu tilmaam fiican u yahay heerka nolosha uu qofku ku sugan yahay. Dumarku waxay u arkaan ninka mid aad u soo jiidasho leh markay arkaan isagoo dhar heerkiisu sarreeyo xidhan. Number 3, codka ninka. Waxaa la ogaaday in dumarku u arkaan ninka codka weyn leh mid aad u soo jiidasho leh. Dumarka si dabiici ah waxa uu soo jiita ragga xoog ah. Codka weynina badanaa wuxuu caddayn fiican u yahay in dheecaanka testosterone ee raganimadu uu ku badan yahay ninka. Dumarku waxay ka doorbidaan ragga codka yar leh kuwa codka waaweyn leh. 4, dhererka ninka. Dumarka waxaa muuqaal ahaan si aad ah u soo jiita ragga dhaadheer, mana doorbidaan ragga gaagaaban. 5, ninka kaftanka iyo maada badan. Waxaynu gebi ahaanba ognahay in qofka kaftanka iyo maada badan uu soo jiita dhammaan dumarka. Sababtuna waxay tahay in kaftanka badan uu caddayn fiican u yahay in qofka caqligiisu sarreeyo. Dadka caqliga badan oo kaliya ayaa la iman kara ereyo ama hadallo ka qoslin kara dadka kale. Buugga sida saacad gudaheed loogu ogaado qofka ku jecel. Ma ku dawaqsan tahay ogaanshaha inuu qofku jecel yahay iyo in kale? Ma doonaysaa inaad ogaato in qofka aad jeceshahay uu si dhab ah ku jecel yahay iyo in kale? Sidoo kale ma rabtaa inaad ogaato qofka aad soo jiidato iyo ka aanad soo jiidan? Ma rabtaa inaad ogaato qofka kuwa arkay inaad tahay qof soo jiidasho leh? Shaki la'aan, buugga sida saacad gudaheed loogu ogaado qofka ku jecel waa buugga ugu fiican ee ku bari doona sida saacad wax ka yar loogu ogaado qofka ku jecel iyo ka aan ku jeclayn, haddii aanad ku ogaanba 5 daqiiqo gudahood. Si aad u ogaato sida aad ku helayso buuggan iyo sida aad noola soo xidhiidhaysaba, booqo website-kaygan waxkabaro.blogspot.com oo aanu sidoo kale kuugu qori doono description-ka hoose ee fiidiyowga. Sidoo kale daawo fiidiyowgan oo ku siin doona macluumaad badan oo ku saabsan buuggan.